قلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود. فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود. فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود. أصلي لربي أصلي وأمضي بدربي إن الحمد لله من نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. أحبتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hadduu allaha awoodda lihi ogolaado insha allahu tacaala waxaan halkan naftayda iyo walaalahayga aan jeclahayba ugu soo gudbinayaa inaan muujinno insha allahu tacaalaa salaadii rasuulku uu tukaday sala allahu calayhi waaalihi wasalam. salaadii rasuulku uu tukaday laga bilaabo min altakbiiri ila atasliimi kaannaka taraahaa, laga bilaabo allahu akbar oo salaada lagu galo laga gaaro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo salaada laga baxo sidii adigoo arka rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam salaadiisii. waxaan ka hormarinayaa axibatii fi lislaam intaanan hoos u gelin muxaadarada ama tadbiiqan iyo baraatikada aan rabno inaan dadka walaalaha muslimiinta usoo gudbinno, inaan sheego dhowr arrimood. arrinka koowaad, wax kitaabkan dhexdiisa insha allahu tacaalaa masaa-isha aan kusoo gudbin doono haddii alla idmo waa mulakhas, waa wax lasoo gaabiyey oo ah salaadii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam. dhammaanteedna masaa-ishaas waxay ku wada taagan tahay adilla صحيحة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث وذا صحيحة أو كسقناتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. جميع ما نقوله في هذه المحاضرة إن شاء الله لمان وحا أنكسو قد بندون محاضرة وحا سو قد بيي أو صحيحيي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله raxmatan waasica. haddii uu qofku u baahdo adilla dheeri ah ama inuu masalo aan ku sheegay muxaadaradan uu daliilkeeda si faahfaahsan uu ugu baahdana wuxuu ku laaban karaa kitaabka asalka sifatu salaati nabiyi lisheykh alalbaniyi raximahu llahu tacaala. inoo suurageli mayso hal muxaadaro inaan salaada oo dhan min altakbiiri ila atasliimi maca adilatiha iyadoo adiladeedii wadata aan wada keenno. sidaas darteed waxaan ku kaaftoomi doonaa insha allahu tacaalaa masaa-isha inteeda badan inaan isku dayno inaan adilada aan ishaarno. wixii aynu ishaari weynana waxaad ku ogaanaysaa muqadimada aan ka bixiyey oo ah inuu dhammaan
sheekh alalbani raximahullahu tacaala uu saxiixiyey waxa aan rabno insha allahu tacaala inaan halkan muxaadaradan kusoo gudbin. laba masale ayaan insha allahu tacaala rabaa inaan marka hore soo gudbiyo oo kale. masalada koowaad walaalayaal, qof walba oo muslima salaada wuxuu og yahay inay tahay rukniga labaad ee arkaanul islaamka. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam buniya alislaamu calaa khams: shahaadati an laa ilaaha ila allah wa iqaami salaah wa itaa'i zakaah wa sawmi ramadaan wa xaji lbeyt liman istataca ilayhi sabiila. waxaa lagu dhisay diintan islaamka 5 tiir. tiirka ugu horeeya inaad ogtay inuu yahay shahaadada. tiirka labaad wuxuu noqonayaa salaada oo la hagaajiyo. wahunaaka farqun, waxaa u dhexeeya farqi salaada oo la tukado iyo salaada oo la hagaajiyana farqi ayaa u dhexeeya. waxaa laga hadlayo adiladu mar walba ay ka hadashana waa salaada oo la hagaajiyo. axibati, waxaa kalood ku ogaanaysa ahamiyadda salaadu ay leedahay. waa alcibaada alwaxiida, waa cibaadada keli ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka min fawqi 7 samaawatin uu uga soo dejiyey laguna faral yeelay. yacni waa shayga looga faral yeelay min fawqi 7 samaawaat, iyadoo markii hore ahayd 50 salaadood, laakiin marba lasii gaabinayay. markii u dambaysana lagu reebay 5 salaadood ee waajibka hadda inagu ah. waa sidaad ogsoontihiin walaalayaal, salaadu waa rukniga ama waa camalka haddii ay wanaagsanaato acmaasha kale oo dhan qofka aakhiro waa laga aqbali. haddii ay xumaato laakiin dhammaan waa lagu wada celin doonaa acmaashiisa kale oo dhan. shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa wuxuu leeyahay salaadu waxay noqotay shicaarka muslimiinta lagu garto. walidaalika baa waxaa la yidhaahdaa ahlulqibla baa sidaa sameeyey, ahlu salaah ayaa ama iskhilaafay ama iswaafaqay. masalada labaad oon rabna insha allahu tacaala inaan iyadana ishaarno waxa weeye walaalayaal, qofka salaada ka taga xukunkiisu muxuu noqonayaa. qofka salaada ka taga masaladaas waa masalo khilaafiya qadiiman wa xadiiثana. culimadu mar walba kuwii hore iyo kuwa dambe way isku khilaafaan. 3 ka mid ah a'imada muslimiinta oo ahaa alimaamu maalik iyo abu xaniifa iyo shaafici waxay ku tageen qofka salaada ka taga inuu yahay muslim caasi ah. wabihaada haddii la yidhahdo waa muslim caasi ah, waxay noqon inuusan qofkaasi islaamkii uu ku jiro oo gaal aan la odhan karin oo khaarij can almilla aan lagu idlaaqi karin. laakiin imaamu axmed iyo ibnu rahawiya iyo kayrkood ayaa iyagu isxaaq ibnu rahawiya iyo kayrkood ayaa waxay leeyihiin qofkaasi waa kaafir, kufrigaasna waa mid islaamka ka saaraya. haddii bitadqiiq loogu laabto adilada walaalayaal oo adilada min alkitaabi wasunnati gadaal loogu laabtana waxaad arki kartaa inuu raajix yahay. wallahu aclam dhinacan imaamu axmed iyo oo ah in qofka salaada ka taga uu yahay kaafir kufran mukhrijan can almilla, gaalnimo oo ka saaraysa islaamka qofkaa ka bixinaysa. adilada waxaan ka ishaaraynaa darafan minha ama qayb kamida ayaynu ishaaray insha allahu tacaala. allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcuuna ila sujuudi falaa yastatiicuun. waa maalinta qiyaamada ah, waa maalinka loo wici doono dadka inay sujuudaan ama gaalada waxaa loogu yeedhay sujuud, ma awoodi doonaan inay sujuudaan. falaa yastatiicuun. aayaddaas marka waxaa laga garanaya shaykhulislaam ibnulqayim raximahullah sida uu leeyahay waxay tusinaysaa kufri taariki salaa. qofka salaada ka tegay inuu gaal yahay ayay aayaddaasi tusinaysaa. daliilka labaad waxa weeye aayadda allah leeyahay maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusalliin bay leeyihiin. maxaa naarta saqare idin soo geliyey baa la dhihi doonaa oo naarta ku mutaysateen. waxay leeyihiin ma aanaan tukan jirin. iyaduna waa ibnulqayim raximahullah mar labaad wuxuu leeyahay aayaddanna waxay ku tusinaysaa kufri taariki salaah, ninkaas ka tegay salaada inuu yahay gaal ayay ku tusinaysaa. adilada waxaa ka mid ah rasuulku inuu leeyahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam ina bayna alrajuli wa bayna alkufri washirki tarku salaa. qofka iyo gaalnimada, qofka iyo shirkiga waxa u dhaxeeyay waa salaada inuu ka tago.
رواية الترمذي بين الشرك والإيمان ترك الصلاة. شرك إيمانك وحاول حيا إنه صلاة قفك كتب. حديث كيك لواكي رسول كلية إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. عهد نور حيا النجا يضد كاس قال هذا وحويان الصلاة. هدي وقفك أوتو كذا وحن نقول مسلم، هدي صلاتك تجانا وحن نقول يا كافر. رسولك عليه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تفقدونه من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدونه من الصلاة. وهو الرأي الدين تين أدواي دونتان وأمانة. أمانة وقت هراي بحيسة يحكمك يسيد أدلك للدوانا يشاريان وآخر ما تفقدونه وقدم بيود واي دونتان وحن نقول يا الصلاة. صلاة يدنا وايسان. سيدوك لرسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه هي وحال فردونا عرى الإسلام عروة عروة وحال فردونا حركها ضدك مسلمين تا إيه إسلام كحركيه سوى فري وحاوه الرئي الله فرنا وحون نقون حكمك وحاودن بينا وحون نقون دونا صلاة الوايدون. طيب وحكمد ولا ليال أدلة الدليشنا أصحاب رسول الله وأكتها يوحيها إلا فهموا الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة أي الدين تلو فهما كتابك إيه السنة دي رسولك أو سلفك سيدة أفسرين ولبلا الراعو وحي أرنجرين أصحاب رسول الله وحي أركيين إنو سنقال نمكينين أرن عن أهين صلاة كتيجتان كذا يعني أمور تكلي أعماشك الأردن ما إنه كيني جرين أعماشك الأردني صلاة إنه يقفك قال نقول ما أركين لكن هذا صلاة كتجو إنه قال نقول أيو أركيين إنه صلاة هذا قفك كتجو إنه قال نقول أيو أركيين. تاسنا هو الدليل كلا عمر بن الخطاب يسون وحول لا حظ في الإسلام أحد أو ترك الصلاة. دين الإسلام وحظها أما واحد دافع كمالها قف صلاة كتجي. عبد الله بن مسعود أيا يسون وحوليه هي من لم يصلي فلا دين له. قف كي صلاة أنت كنين دين مله. حذيفة بن اليمان أيا يسون وحوليه هي أنتو أركين أنتو كناية أو صلاة قلداية أيا وحيري لو مت على ما صليت ولو مت على غير الفطرة. صلاة ماذا تكنين هدات صدا كل من لهيدنا وحين نقول لهيد إن أتكل ماتو دين أن دين النبي الله محمد أنا هين رسولك صلى الله حديث كلاس سجن وحصاء أروري إن تصينيس إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولو في حديث كولا ليال رجل كقفكو وحوت كان يا 60 سنة لحدا سنة أيوت كان يا وما تقبل له صلاة دي سنة أن لا أقبلين لعله وحصر رجلا إن الركوع لا لما يستريو أو سجود أوسن هجاجنين أما السجود هجاجن الركوع لا أيوسن هجاجنين أما الركوع يسجود لباديبا وخلطيا. شيخ الألباني أي حسن كدق حديث كاس أدلة ولا ليال وحين تصيني ساعة وان طرف أما قيبا كسو قانون تصيني إنه قفك صلاة كتغا علماء أدري شتي إنه يا كافر كفرا مخرجا عن الملة. وحرب أمرك إن شاء الله تعالى إن صلاة دي سي ملخصة أما سي كوبا مسائشة سكدب إن شاء الله تعالى أن أرح قلو قفك صلاة دا مركي وربا إنو باللعبو وحا أقوه الرأي الله سماياي واستقبال القبلة إنو قفك سمايا وإنو قبلة دا وأجيت سيدو قبلة دا أجيت سيدو وركني من أركان الصلاة كمدة أو أين سورة قل أهين إلا قفكو إنه لي ما دم أوجي تاسنا وحين قنيسة وحيابها الدلة ده كينا يوحاك من الرسول صلى الله عليه وسلم واجي وروحوته كان جري بيت المقدس لكن مركي قبلة لو أقول علي إنه أجيت سدو صلاة لحظات قولدي استجلتو كتي مركي كتجان قوم كي كلام مسجد قباء كنت كان يي صلاة لحظات أيام اللي بدلت ولو يجي جيت سد صلاة دي حال القرآن بسود دقيقة هلا جيت سد صلاة لحظات أيه كجر أي جيت سدين هذه الصورة قلتها وحي أهان لهيد إني هلك استجسي جدا صلاة ضوء كل ما يستان وحجرة تذكر قار أي صورة قل إنه قنكرتو إننا قبلة أين أجيت سنين وحاكم إذا مثلا قفكي محارب كها صلاة الخوف كجرة دجالكي كفود ضدك قال يا مسلمين تمرك يسجوه ريمادان قف كاسو كلا
وأسوروبي ميسو إنه قبله حلقة أجسده وحكلينه أسوروبين قفك مريض كأم جرن آدي آدنا أجرن سورة قل أين وهين يسوون قبله إنه أجسده qofkii doonta saaraa qofkii markabka saaraa qofkii diyaaradda saaraa dadkaas oo dhan hada iyaguna ka baqaan inay dhacayaan oo kale iyaguna qiblada u jeedsigeysii waajib ku noqon maayo sidoo kale qofkii sunno tukanaya isaga oo sunnadaasna gaadiidkiisa saaran isagana waxaa suuragal meel alla meeshii gaadiidkiisa u jeedo inuu isaguna isaga tukado suuragal ayay noqonaysaa qofkii qiblada aan u jeedsanin oo qiblada isagoon u jeedsan yiraahdo salaad baan tukanayaa salaadiisu waxba kama jirto ilaa laakiin waxa suuragal ah qofkii qiblada ku dadaala midalan liqaymin baraf baa dhacaya roob baa dhacaya qofkii waaba garan waayo wuu salalay dadka markay kala garan waayaan jihada qiblada ay ka jirto dadaalna wuu bixiyay dhinac buuna isaga jeedsaday waxaana cadaatay meeshuu u jeedsaday inay qibladu ahayn qofka salaadiisii وصحيحة من سوء علين ما يقف كاسي ركن الله بعد ولا ليال وقيام صلاة مركز لتكن هيو وين لو استاج ولا جم مرمان كاسنا وحين قنيسة واجب مصلي يجنا قرار قف أيا لقى سور ريبة يا سيدا أن استقباله قبل وقى صور ريبني أيا صورة جلا يجنا دور قف إن لقى صور ريبه مثلا قف كي جرنا يوكله وحصورة جلا إنه صلاة فرديس كيتو كذا إنه صلاة كل بسيدو أول أيو قف كاسي كنت كان كرا نينك عمران بن حسين حنون صنا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحو كيري هدي أدستاي كرتو وين أدستاكتو هدي كلنا فرد كتكو هدادا فرد أولنا قفك حتى جيف أيا صورة قلوة إنه مركز وكتكو قفك كتو كان يفردق ومبنانا inuu shay intuu soo qaato sida barkin oo kale iyo wajigiisa uu saarto suuragal ma aha laakiin wuxuu sameeynaya wuu ishaaraya rukuucda wuu ishaari sujuudna wuu ishaari bimaana waxa laga wadaa qofku inuu hoos isu foorariyo sujuudiisuna ay noqoto rukuucda mid ka sii hooseysa mesela markuu rukuucdiisa soo kale uu yiraahdo sujuudina waa inuu ka sii hooseeyo waa laga maarmaan isagu طيب صلاة الوتو كذا دومها يا مراكبتها يا ديارها وصلاة صحيحة سيدا ذا سينا قفك وجود عيسى لنا سؤالين مايو وحاسو رجلا قفك إنه فريستو إنه استاجو صلاة الليل كي أكل مثلا مركو روح تكنايو صلاة الليل وحاسو رجلا إنه أذكرته قيبنا أد مركو مثلا أضفريسته فردق أد قرآن كي كو أقرضه markii qiradii wax yar ka dhiman yahay inaad istaagto aad aqrido kadibna aad soo rukuucdo sidaasna rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu sameeyay waxa kaloo banaan salaada lagu tukado kabaha iyo salaada in la iska bixiyo kabaha labaduba waa mas'ala banaan sida fadliga badanna waxa la leeyahay qofku waa inay marna uu ku tukado marna uu iska balaan tukado لكن مسألة معها قف عن كبا قبيني إنه يراد السنة تطبيقنا يا وكبه يراد سدو تامة أما إسقوا ميل أباهن لقى يا وضد كشقين يي كمبنية الجو أو كلا إنه يراد أن كباهن ويجنا إسكب حين ناتاسنا سنة النقد ميس مركوا مسألة أبنان هذو قفكم مساجد دي جوجلانيد يجريه ماله نظافة هيد وجوجنا كبلا أنتي سأكتو كذا حدو ماله كلا جوج كمبنية دي ماله لقى شقين دور كوجوجنا كبيه سايس كتو كذا وهم مشاكل ماله مركوا مسألة الله وضع قيبات بأي بناي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أينا كسرنا تعرين تاسي صلى الله عليه وآله وسلم ونكهذا كباهاسو وحيري هدات كو أركتان شيء نجاسة هدات كو أركتان قفك إلا نجاسة وهدو كو أركي حتى دولك كسو ترتير بودي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم عيدة آيات طهيريس وعيدة طهارة النقونيس وحا بنان إن لو تكدو منبرك إيا ميل سريسة إمامك أو كتكدو سيئو صلاة ديسة دادك كلا أطسيو تعليم أي النقطة أي أركان صلاة الصحة أنا أي أبرتان سيداسنا وحي كسوناتي
rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuuna ku tukaday mimbarkiisii markuu soo gaadhay rukuucdii ayuu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam sujuudi markuu usoo degi rabay ayuu qahqara waxa la yidhahda sameeyey gadaal gadaal ayuu usoo siqay kadibna aslil mimbarka salkiisa ayuu ku sujuuday sujuudii markuu dhammaystay labadoodiibana haddana wuu istaagay mimbarkiisiiba ku laabtay masaladaana qofku wuxuu samaynayo litacliim way inay dadku ay bartaan marka salaada sidaasay baraatig ay rasuulka uga sugnaatay sala allahu calayhi waalihi wasalam maadaama ay baraatig rasuulka uga sugnaatay waa lagama maarmaan in salaadii baraatig lagu sameeyo oo dadkii muslimiinta ay arkaan dad badan oon garan karin baa jira bal iska dhaaf dadka caamada ahee dadkii multazimiinta ahaa ee masaajidda laazimi jiray ayaad mar walba ku arkaysaa qaladaad aad u tiro badan oo salaada xaggeeda ku saabsan waxaa ka mid oo kale walaalayaal qofka waxaa laga maarmaanka in wujuubu salaati ila sutra sutradii inuu u tukado iyaduna waa waajib oo ruuxu sutro inuu samaysto waa lagama maarmaan sutradaasna waxay noqonaysaa shay wujuub ah intaynan sutrada u gelin kabaha markuu ruuxu ku tukanayo hadduu qabo la garaya hadduu iska bixiyo kabaha ma dhigaayo dhinaciisa midig dhigan maayo xagga bidixna dhigan maayo hadduu qof kale la tukanayo wuxuu dhigayaa meesha labadiisa lugood u dhaxaysa hadduu keligii yahayna dhinaca bidix wuu dhigan karaa marka waxaa kuu soo baxay hadduu dad la tukan labada lugood dhexdoodu dhigan karaa haddayna jirin meelo loogu talagalay kabaha oo la dhigto sida hadda masaajidda waad artay meelayo loogu talagalay baa jira meelaha ha la dhigto haddii aad jirin meel loogu talagalayna kabahaaga intaad ama lagaaba qaadan lahaa ama sunnadii aad khilaafi lahayd labadaada lugood dhexdooda dhigo sunna tadbiiqinaysaa haddaad keligaa tahay dhanka bidix waad dhigan kartaa haddaad dad la tukanna labada lugood dhexdooda dhigan kartaa laakiin waxaa imaa ama latiif ay ku sugan tahay xagga hore inaan la dhiganin iyo xagga midig midna inaan la dhiganin sutradaa la samaynayo waa waajib inuu qofku sutra samaysto sutra waxaa weeye shay dadka kaa qarinaya waa midkaad baraatigta ku arki doontaan insha allahu tacaala markaan samaynayn shay dadka kaa xijaabaya oo meeshaad ku sujuudi lahayd waa inaad shay dhigato shaygaana intuu leeyahay waan tusaynaa insha allahu tacaala arrintaa masaajidda waaweyn iyo masaajidda yaryar waa iskaga mid waa waajib sutradu sida laga arkaayo adilada rasuulka ima xadiiskiisa uu rasuulku leeyahay laa tusalli ilaa ilaa sutra ha u tukanin ilaa sutro inaad dhigata ma ogiya ha u tukanin hana ka tegin walaa tadaa ahadan yamuru bayna yadayk qof hortaada marayana hadaynin fa in abaa faltuqaatilhu fa ina macahu alqariin yacni ashaytaan xitaa qofkaa isku dayaya inuu maro hortaada hadduu isku dayo hortaada inuu maro la dagaalan waxaasita shaytaan baa la jira iska dhici oo salaada yuusan kaa fasahaadinin waxaa waajib oo kale sutrada in loo dhowaado waa lagama maarmaan in loo dhowaado intay leegtahay marka sutradu waa shay intee leeg rasuulkaa tilmaamay sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi midla mu'kharati araxli falyusalli walaa yubaali min waraa'i dalik haddii uu qofku tukanayo waa inuu dhigto shay la eg xagga dherarka kooraha faraska waxaa la yidhaahdaa faraska markii la saaran yahay waxaa jira meel bari dhowr la yidhaahdo qofku markuu saaran yahay uu salka uu ku hayo meesha qofka faraska saaran salka uu ku hayo waa shay saasoo kale loogu sameeyey sida rixligii kutubta la saaran jiray oo kale u eg marka shaygaa intuu la eg yahay oo kale sutradu waa inayna ka yaraan taasna insha allahu tacaala baraatigta ayaan ku arki doonaa oon ku muujin doonaa haddii alla idmo sutradu shaygaa haddii ay la ekaatay waxaan halkaa ka ogaanaynaa inayna suuragal ahayn in la xariiqdo dhulka in sidaa xariiq loo dhigto in tusbax oo kale la dhigto in waxyaabo yaryar dhulka saa mara yar loo dhigto waxaasoo dhan sutro noqon maayaan sutradu waa inay tahay shay soo kacsan oo kor u taagan waa inay tahay waa lagama maarmaan
qofku sutrada markuu dhigto iyadu u jeedsanaya dhanka midigna ka mari maayo dhanka bidixna ka mari maayo xadiiska arinta ku soo aroorayna waa xadiis daciif in yamiinan oo yasaaran dhinac laga yar maro sidaas darteed waxaa la rabaa in sutrada nafteeda la qaabilo rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam sutra wuxuu ka dhigtay al-asa ulbu ka dhigtay oo maqruusa oo dhulka ku muday ama uu ku talaalayay wuxuu ka dhigtay warankii iyo eebadii iyo takidii iyo wixii la oran jiray ushii dheereed oo murjinka xagga hore ku lahaydna dhulka waa ku dhufan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam sutra u noqonaysa geed buu rasuulku xaqiisa u jeedsaday oo sutra ka dhigtay ustuwaanat almasjid masaajidka tiirarka ku yaalay waa weyn oo kale way noqonayaan iyaguna sutr wa imra'atun mudajja'a waxa dhacday rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam Aisha oo hurda xitaa dhankeeda inuu u tukaday waa suuragal waxa kaloo dhici karta adaaba rito qofku haduu neef geela wato oo kale intuu fariisiyo inuu sida uu ardi balad ugu fariisiyo inuu saasoo kale ugu jeedsado waa suuragal intaas oo dhan sutrada almuhim sutrada waxay noqonaysaa shay taagan ayay noqonaysaa qadarkiisuna inta aan tusin doono dhan insha Allah ta'ala taqriiban waa inuu san dhudhunkan oo kale yani wax taaka ka yar dheer waa inuu yahay taaka wax ka dheer waa inuu taqriiban waan tusin doonaaye aagadan biyaha oo kale oo dadku hadda ay wada yaqaanaan yani waxaad muddo sutradu wax ka yar dheer waa inay tahay waa inay wax ka yar dheer waa inay tahay waa laga maarmaan طيب waxa xaraama qofku markuu tukanayo inuu u jeedsado qubuurta qubuur wadankeena wad aragteen oo masaajidiisa qubuur baa ku wada dhaxtaal markaas qabriga hadana xaqiisa loo sii jeedsanaya arinta waa xaraam way rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya ka hadlay ahadiis saxiixa baan uga sugnaatay in loo jeedsadana ma aha تحريم المرور وحكلو حرامة إن لمره بين يدي المصلي قفك دو تكنيو هرتيس إن لمرايو حرام ولا يجوز المرور بين يدي المصلي قف بين يدي السطرة هدو الروح السطرة سمايستو مدي أنت الماميني هرتيس إن لمراي حرام أما مساجد أهاتو أما يينا أهانين أرنتاسنا وحان كفايدي سنينه دليل رسولك ويقول حديثك صحيحة لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه هدو أجيهي قفك مريا قفك تكني هرتيسا وحد شيسا والدنبئة لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه إنه أفرتن تاجناذه أي وخير بدنان لهيد إنه قفك هرتيسا مر أفرتن كاس ما أفرتن مع الموضبع ما أفرتن بلوضبع ما أفرتن سنة ما أفرتن ساعبة الله أعلم إلهي بأق علماء وحيلين أفرتن مع الموضين تايبا أبضن تاي سيدون طبعاتي أفرتن ساعة استاك هدي اللي ولاهدو لباتاكو وسوان سيدا استرتت قفتو كان يهرتيسا هامري وجوب منع المصلي للمار بين يديه قفك هدي هرت هذا مركه واسكو ضيع انه مره ان اسكعلسو ايا واجب كو ادغنا رسولك وحوري صلى الله عليه واله وسلم ولا تدع احدا يمر بين يديك وامر لو صاري ولا تدع هكتجين هدين احدا يمر بين يديك قفك اسكو ضيع انه هرت هذا مره هو اوغولانين إذا صلى أحدكم إلى شيء رسولك حديث قال صلى الله عليه وسلم وحوليه هدو قف إذن كأن كمل أتكنا الشيء أو يستره من الناس تدك كأسترية فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أو دمعو قفوني إنه مرو هرتيس أما وحون حيوان حتى فليدفع في نحره رونتا كرفت قفك اسكد إنه كصهر مرة رونتا كرفه وليدرى ما استطاع هيسكعليو انتو أودو فليمنع مرتين رواية كله رسولك وحوري هيسكعليو فإن أبا فليقاتله حديو ديدنا هلا دقالمو فإنما هو شيطان والشيطان هيسكع بعيال marka isagana baratikta insha Allah ta'ala waxaad ku arki doontaan
markaan samayn doonno haddii alla eedmo salaada dhexdeed. almeeshu ila alamaami limanci almuruur, waxaa suuragal ah hadduu wax isku dayo inuu horey inuu soo maro hortaada inaad adiguna tallaabo qaado, waa suuragal. qof baa isku daya inuu hortaada maro, xayawaanka iyo neef ariya isku dayo inuu hortaada maro, waxaad samaysaa adiguna dhaqaaq oo horey u soco ilaa aad derbiga ama meeshii satradii aad samaysatay aad isku dhajiso. rasuulkuna way dhacday sallallahu alayhi wasallam, neef ariya baa wuxuu damcay inuu hortiisa maro oo satrada ka soo ka rasuulku waa la orday, fasaca orod buu la sameeyey ilaa markii dambe uu ku qasbay inuu neefkii arigaa satrada gadaasheeda inuu maro. satrada gadaasheeda inuu maro. ahamiyatu salaa, salaada waa shay aad iyo aad satradu waa muhiim u ah, waxayna satradaasi kaa celin qofka salaadiisa iyo fasahaadka salaadiisa ku iman lahayd ayay kala celinaysaa. bikhilaafi alladii lam yattakhidha, qofka aan laakiin sutra hadduusan samaysanin, qofku hadduu sutra ka tago waxaa jira waxyaaba salaadiisaba ka burinayaa jira. waxaa ka mid ah siduu rasuulku sala allahu alay slam xadiis saxiixa uga sugan inuu goynayo almar'a iyo ximaarka iyo kalbul aswad. haddii qofka isagoo salaada tukanaya sutrana aan samaysanin, qof dumara oo baaliqa oo qaan gaadho oo qof weyni oo hortiisa soo maro, salaadiisii way ka go'aysaa. waxaa la mid oo kale ximaar ama dameer hadduu soo maro ama ayga madow hadduu soo maro. arrintaasna waa masalo macruuf ku ah, khilaaf weyn baa ku jira culimada dhexdooda oo laga soo bilaabo cahdu saxaaba oo Caaisha radiyallahu anha aad uga doodaysa oo dhahaysa waxaad nagala mid dhigteen dameerihii iyo ayadii ayaad nagu darteen. hase ahaatee masalada waxaa laga hadlaya waxa weeye sutradii ahamiyadeeda in la tuso, laakiin hadduu qofku sutra samaysto dameer iyo ay iyo dumartoona hadday gadaashaas ka dambeeyo sutrada maraan, salaadaadii kaa goyn maayaan. marka ahamiyad bay leedahay inaad salaadaada sutro u samayso, waa lagama maarmaan. walaalayaal, qofku markuu arrimaha sameeyo oo uu la yimaado isqiblada inuu qaabilo, oo uu la yimaado inuu salaadii qiyaam u sameeyo, uu la yimaado inuu sutra samaysto, waxa uu samaynayo waxa weeye ku xigaayay inuu niyad ila salaadii buu rabaa inuu galo, weli lama gelin, inuu niyad salaadii u la yimaado. niyada la sheegayo horta maxalluha qalbiga way, niyadu waa uun qalbiga. wuxuuna niyoonaya waa salaada uu tukanayo, maalan waa duhur, waa 4 ragcadood ama waa maqrib, waa 3 ragcadood, taasuu niyadiisa ka niyoonaya. laakiin in lagu talafudo oo afka looga dhawaaqayo waa bidco, rasuulkana kama sugnaanin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. sidaas darteed niyadu waa un qalbiga. salaadaad ku jirtaad aad rabto inaad tukato unbaad niyoonaysaa. kadib qofku markuu la yimaado niyada waa inuu takbiir la yimaado, allahu akbar ayuu la iman. rasuulka ayaa wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, miftaaxu salaati at-tahuur wa taxriimuha at-takbiir wa taxliiluha at-tasliim. salaada miftaaxeeda ama furaha lagu galaay waa in la soo tahaaro qaato, weysaa ka horeysa. haddaan weyse iyo biyo la haysanina in la booraystaa ka horeysa. marka salaada waa inaad tahaaro u soo qaadato, waa kow. tahaarada markuu qofku la yimaado ayaa wuxuu la imaanayaa haddana salaadii takbiir waa inuu galo. marka waxaa la yidhi wa taxriimuha at-takbiir. taxriimka waxaa weeye wixii taxriimu maa axalla allahu lak, waxyaabo badanoo ilaahay kuu xalaaleeyey baa kaa istaagaya. cuntadii baa kaa istaagaysa, hadalkii baa kaa istaagaya, socodkii baa kaa istaagaya. umuurtaas oo dhan salaada haddaad gasho waa inaad ay kaa joogsadaan. wa taxliiluha at-tasliim buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam. shayga umuurtaas hadda aan sheegnay kuu xalilaya oo haddana kuu banaynayana waa tasliimtii u dambeysay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. qofku markuu yidhaahdo salaada ka baxo, qofku sawdkiisa ama codkiisa kor takbiirta ugu qaadi maayo. inuu imaam yahay ma ogi. hadduu imaam yahay kor buu qaadi, allahu akbar buu leeyahay si dadku u maqlaan.
لكن dad كان مأمومين إمامك كده بتكنية ومساجد كجس مركو إمامك الله أكبر يونا الله أكبر وضعها يكرل قاضية مسألة سواء مسألة خلط الله أكبر هي رهذان لكن إيوه اسم قشيان مأمومين توحى القربة إن إيوه اسم قشيان إيه ضدك كلمة قشيان معه وحاوبنا مؤذنك إنه يسوي عدك إمامك كر قاضة هدي الله باهضو مثلا ضدك بات ربضا ميكروفون مجرو أما إمامك عدك سيباير صوت كيسا ضعيفة مركاسو كلا مبلغ وحلي هذا بالله سمين كرا الله أكبر إنه قفي هذا سيدا هذا أتكو عركتين مركا قار هذا يدعو أو كلا إن لسميه مبلغ أو كلا إمامك هذه ميكروفون كي وجو أو كلا مثلا ضدكن أي ترب بدين أو ميكروفون الآن بلتو كان يقف مبلغ ولا سمينا يا مركاسو كلا طيب قفكم مركو صلاتي كلا الله أكبر ويلاهدو وحاول لمن وامحي وإنه لماذا قعمت رفع اليدين وإنه قعمها كر قاضو وحرمنا مركا إنا أنبرنو قعميه وكر اللو قاضو إيه كيفية حبك اللو قاضو يواسده صدح كيفيو أيا رسولك كسقناتي صلى الله عليه وآله وسلم صدح ضوضبنا وصحيح وين السجيهين رفع اليدين يرفع يديه مع التكبير إنه قف كل وضع قعمود إيه تكبير تإسلا قاضو تكبير إيه لوضع قعمود إنه إسلا قاضو الله أكبر ساسو كلا إنه يلاهدو إنه الله أكبر تهور مريو قعمها قادس توضع الله أكبر تو أي كهر ريسو أما إنه قعمها قادس توضع وهور مريو وحانت كو أركي دونتا إن شاء الله تعالى وندب لقينا مركا عن سمينين براتك إن شاء الله تعالى قفكم مركو الله أكبر أو يراهدو أو قعمها قاضو الله أكبر تسلي يراهدو وحو كرو قاد يرفعو هما لودي قعمود بكرو قاضية ممدودة الأصابع قعمها هاجي أو فروه دي ساء تاجيهين وإنه قفك كرو قاضو ولا جم مارمان حلكين لجارسينا يا قعمه ومسألة كلايتنا لبا الريموت بالرسول كسقناتي صلى الله عليه وآله وسلم أرنته هوري وإن لجارسيو حذو المنكبين لبا ذا قرب وإنه قفك كؤاديو هذا قرب وإنه كؤاديو أرنت labaadna waa in lagu aadiyo furuuca al-udnayn labada dhagood qaybtooda hoose oo furuucda la yiraahdo qaybta yar in halkaas oo kala gacmihii la geeyo iyaduna waa suuragal mas'ale kala jirto oo laakiin khalada oo dadka qaar ay sameeyaan shaxmat al-udnayn labada dhagood hilibkooda yar inay taabtaan oo sidaas oo kale ay yiraahdaan halka gacmaha ay ku xoqaan مسألة من دواعي الوسوسة بكميتها وحيابها قفكة وسواسك أوكينا وانا بدعة عن سجنا نوي مركي الله وضع الرموضي هوري أيها رسولك كسوي مركي قفكو إنه إسلاق هذا الله أكبر ساسو كله إنه الله أكبر إنتو يراد هذا نجمعها قوضة أما إنه جمعها سيق هذا كدبنا الله أكبر يراده الله وضع ميلاد نو جالسين أما هالكاس لبدا سنة وإنت رسولك كسقناتي صلى الله عليه وآله وسلم سؤال شكله ولا ليال وحي نقنيسا حجيلا دغيا انت لا دغيا اي سؤال وقعمها مركي لا قادو الى هدا waxaan ka hadlaynaa wala qaaday xageela dhigaya qofku wuxuu dhigayaa gacmihiisa sadrigu waa xabadka ama laabta meesha loo yaqaano labada naas tushooda ayaa waxa la saarayaa gacmahaaga oo sida isu saaran ayaa la saarayaa xadiiskaasina wuxuu ka sugnaaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam rasuulka ayuu ka sugnaaday sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaan sugnayn on wax xadiis oo saxiixa ku soo aroorin wadcuhuma ala ghayri sadri imma da'if wa imma la asla lah waxaan ahayn in la dhiga xabadka ama laabta wixii ka soo haray oo dhan ama waa daciif ama asalba male sidaas darteed ama xadiis daciifa ku soo arooray ama waa asalba mala in la yiraahdo مثلا كليده oo kale lagu qabsado in la saaro caloosha dhaxdeeda مثلا in la saaro dhuunta oo kale kullu hada waa wax wada daciif on adilla saxiixa
aan haysanin marka waxaa uun sugan keliya in xabadka ama laabta la saaro ayaa sugan su-aasha kale waxay noqonaysaa qofku markuu salaada tukanayo xagee buu fiirinayaa qofku intuu salaada ku jiro oo wuxuu fiirinayaa mowdic sujuud meeshii uu ku sujuudi lahaa buu fiirinayaa markii laga reebo atixiyaadka markuu aqrinayo الصبابة فرتها مدق أو تاجن الله إشارة أيو قفك فيرنا وحي كسوهر أتحيات كأردنا وحو فيرنا ميشوك السجود لها أرنتاسنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يدنا كسوغناتي قفك مركي تكنيو مدقنا ما فيرنا بدحنا ما فيرنا حدو أرمها سمي كرنا ما فيرنا أرنتاسنا وحو رسولك كتل مامي اختلاس يختلس الشيطان من صلاته ما صلاة العبد وحول وضفت أو الشيطان كل عرريو صلاة قفك مركز أرتان قفت كنا يو رنكا سي فيرينيا أما قفت كنا يو حقا فيرينيا أما قفت كنا يو عركة إسكا فيرينيا الشيطان با صلاة دي سي لأرديو لا عرري قفك سنة الشيطان كا أيو سي فيرينيا رسولك وحول صلى الله عليه وآله وسلم قفك صلاة كنا أو عركة فيرينيا ميوسن كبقين إن إلهي إن به سكقاته إن بهاجي سبحان الله إن لقاته لقاطفه ميادا كبقين سيدا استرتد ولا ليال وإن إلى لنسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن نفير إنه ماشي وقفك كسجود لا محل سجود وإنه فيريو تاسب رسولك كسجان حديث صحيحة صلى الله عليه وآله وسلم أنت أمرك الروح سمايو وحسوق جاري إنه افتتاح سمايو ولفتح هذا اللي ما جاري افتتاح بكوري افتتاح رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دعوين فربضان باكو سو أروري وآدو تربضان وحنكسو قاضينا مثلا الله بدعو سي أن دادك أتصنو إنه قفك يلاذو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد صحيح البخاري ومسلم لبضاس شيخ أي السجود دعاء اللبات أنصاق علينا وحى ويقفك إنه إلى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركو افتتاح أقرنايو كربو أقرن جري سي أي ضدك أوبرتان أو أي لقب صدان طيب ولا ليال هدو قفك افتتاح سلي مادو دعاء معان هدو لي مادو توحيد كترضى بدني وكل هي كدب وحسوق على قرضي إنه أسوق ولي أنت فاتحدي أوصم بالله وحاكه الرأي هدنا إنه الشيطان إلهي كما قالوا سبحانه وتعالى الشيطان كسيدا رسولك أنت وما قال جرى ما أدلة صحيحة ووسقا لبكي في أياك مدة إنه يراد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما إنه يراد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وحاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزي وحاوي الشيطان كوالديس نفخه وحاوي الشيطان ككبر كيس نفثه والشيطان كقبي كيس يشعر كيس عين قنيسة انت أمرك الروح سمايو وحاحيقه إنه بسنك لي مادو بسنك مركز سيدال الله أقري ما كربا الله أقري ما هوسبا الله أقري ما بلا أقرنا يميا صدح ذا قول بعلماء وشيغين لكن وحا راجح إن بسنك الأقرنا يو وانا آيات فتح ذا كمدأ سيدا حديث شيخ الألباني وحسن كدقاي ونوشيغيو لكن قابك الله أقرنا يا ولا سيري سنيا بسنك hoos baa loo aqrinayaa oo waa la siraysanayaa طيب intaas markuu qofku sameeyo oo bisinkii la yimaado hoosna uu aqriyo waxa xigay waa inuu faatixadii uu aqriyo ruuxu faatixadu waa rukni iyada la aanteedana salaadu suroobi mayso qof walba waa inuu aqriyo waa laga maarmaan hadii uu qofku uusan aqoonin
كعجيسو مثلا دتك هذا صو إسلامي أو كله دتك عجمته أو جرن كرينو هذا أو كله صو إسلام يكون أدقتها صلاة دين إسلام كنا صوق له إن الصلاة كلام بواجب كوا إسلام مركا ما حي سمينا يان وحا صورة قال إني برتان ذكر جان السجع أيا كسهلا أنت فاتح لك برنا يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مركا ذكر جاس أيو قفكو آخرين كرا أنت وفاتح هذا كبرنا أنت مركا سمعيو وحوي سنة سيدا سنة قراءة فاتح هذا الآخرين أيو وإن آية يقطعها آية رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سيدا سوسمين جري آيات أيو أكل جري وعنكو يستاغ جري على رؤوس الآية آياتها ضمات كوضا أما مضح وضا آيات دكالة أيو كو استاغ جري مركا محور جري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول سداس أي رسولك كود جري صلى الله عليه وآله وسلم مركا قراء مفسرة أو كلا جوكتا أو دجن أي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أي أخرين جري قفك مقتدقة أو إمامك كحرنا يا أما كضيانا يا يسوون فاتحة وأخرنا يا ومثلا وحقا خلاف كجرو صلاة السر خلاف كمجرو إمام مأموم بوي أقرنيان لكن صلاة جهرية أو إمام كلا دقيسنا يقرديسة أي خلاف كجرا علماء نحضوضة سيد الراجحة والله أعلم وحين قنيسا قف ولبا إنو أقريو قف ولبا إنو أقريو إمام مأموم صلاة جهرية صلاة سرية متكر له أقري مد هوس له أقري إمام يمامون أنتوا بوين فاتح هذا وضع أقريان قف ولبا وإنه أقريه ولا جم مرمان طيب قرضة وإسخلاف يسا مرر ولا ديرين مررنا ولا جابين سيد الصلاة الصبح وكله قرضة وحي كدير تاي صلاة كله ظهر كأيا صورة عصر كأيا صورة سداس أي مركز صلاة هي وكله ديرين صلاة الليل كنا انتبهوا يجوا ويكسر ديرتها وحنا سجنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه آد وأديري أن يجعل القراءة في الأخيرتين أقصر من الأوليين لبضا ركعات الدنب يجونا وحي كجابيهن لبضا ركعات هراء أي كجابيهن قدر النصف يعني وحاول ركعات ولا بركعات كلا ويكسر جابنت هاف كات بسين نقد ركعات ولا بمدة كلا أي هاف كات أي سين نقد يسا طيب إمامك وما بنانا إنه قرض آدتك أقول رأيه محاجرة وحاكد بتكنايا قف وين أو دقة قف جرن قف ذا الحاجة أنتوا ويكد بتكنايا أرنت أصلا وحي أهيد أرنتي كرنا عضي دودي معاذ يويلكي لسوت كذا معاذ صلاة كل رأي كدم الصلاة وكجوست كدم الرسول كلا يسكت دعويي صلى الله عليه وآله وسلم رسولكنا أرنت واكي كلا حكومي وحنا حق للسيء يجوش هالكاس كرة عضي ويلكي نينك اللي رجل معادنا ولا عنانتي ووحى لويري ضدك وحى كجرا قف وين وحى كجرا قف جرن وحى كجرا قف ذو الحاجة أو أمور يحوله هي كجرا مركز صلاة دي سدا صبان إمامكي لوجو أقولين إنه صدور ربو وكي لما هو إنه ضدك لصعد حالته طيب وحيابها كلا أنت صدي وقردي أنك جسوا كتبنا وحل سوق جاري الركوع دي ركوع ذا مركو قف وسوق جارو قرض مركي وكبحه ركوع أيور ربع إنه قفك أصور رعه ركوع ذا مركا جمعها كربا لو قادي صدح ذي قاب إنه هذا كور مركي تكبيرة الإحرام لحدنا لوجو قادي أيها هذا وقاد مركا وامحي قفكم مركو سيدان وكلو أقرنا يا قرديسي أو قردي وحيسوح السوسين سابراتك أيات كو أركي دونتاني مركو جمعها سيدا قفكو إسو صارو
rasuulka waxaa ka sugnaatay sala allahu calay wasalam inuu sidaas loo saaro iyo in qaabkaa loo qabto in sidaa loo qabto iyo in sidaa loo saaro labadaa kayfiya baa rasuulka labaduba ka sugnaatay sala allahu calayhi waaalih wasalam marka qofku inuu takbiirta iyo gacmihiis la qaado markuu rukuuci haddana allahu akbar ilaan gacmihii baa kor loo qaadaya ama aad hormariso gacmaha ama aad takbiirta hormariso labaduba meesha la geynayana waa uun labadii aynu markii salaada la xidhan kusoo marro ama labada garab ayaad geynaysaa ama labada dhagood ayaad qaybtooda hoose geyn kartaa sidee kayfiyada rukuucdu waa habkee qofku markuu rukuuco wuxuu saarayaa gacmihiisa labada jilib ayuu saarayaa ama labada lowdhe ama labada jilibdhe ayuu saarayaa si fiicanna wuu u qaban gacmihiisana wuu kala geynayaa oo gacmahan ma isku dhajinaya waxoogaa wuu kala geynayaa kaannahu qaabid sidii isagoo qabanaya labada jilib ayuu saasoo kale ugu taagsanayaa dhabarkiisa qofka tukanaya wuu taagayaa yabsuduhu wuu fidin xataa culimmadu waxay yidhaahdeen haddii lagu shubo biyo waxaa la rabaa biyahaas inayna daadanaynin baraatig ayaan insha allahu tacaala ku samayn doonaa ood arki doontaan weelkii la dul saaray xitaa inuusan dhacaynin qofku markaas uu rukuucsan yahay madaxa hoos u dhigi maayo waxaan ka wadnaa inuu gashado labada low dhexdooda sidaasoo kale inuu u foorarsado ma ah korna u qaadi maayo laakiin waxaa la rabaa inuu istoosiyo oo sidaasoo kale qofku uu ahaado ayaa loo baahan yahay adkaar macaan ayaad rukuucda ku aqrin ama subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi aqri ama ducooyinka kale sida subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma اغfir lii subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma اغfir lii rasuulkuna sala allahu calayhi waaalih wasalam waagi dambe oo markay suuradan idaa jaa suuratu nasr idaa jaa nasru اllahi wاlfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مركي سورة داسي سودكتي عائشة رضي الله عنها وحيلاده كان يتأول القرآن كان وحوها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتأول بالقرآن يعني القرآن كأي كل رقم جري كل رقم كقرآن كنا وحاوية رسول كاير اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم waxaad yeeshaan tasbiixdan laga hadlayo istighfaartaba rukuucdiina iyo sujuudiina marka muxuu oran jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma ighfir li waa dikriga ugu fiican insha allahu tacaala oo sujuudda iyo rukuucda labadaba lagu aqriyo ayay noqonaysaa waxaan bannaanayn qofku markii uu tukanayo rukuucdana uu ku jiro rukuucda inaad ku aqrido qur'aan ma bannaano sida ayna u bannaanayn sujuudaba in qur'aan lagu aqriyo umuurtaasna rasuulka ayaa nahiyey oo diiday sala allahu calayhi waaalih wasalam rukuucdii markuu qofku qaafka u rukuuco wuu ka soo toosayaa ictidaal baa la yidhaha ruknigaas waa rukni salaaduna rukuucaan salaadaan rukuuc lahayna rukni baa ka maqan ma ansaxayso haddaanan laga toosin oon rukuuc intii laga noqdo ictidaal loo laabanina iyaduna ma jirto ictidaalkaas markuu ruuxu laabto saa u sii kacayaba samica allahu liman xamidah ayuu leeyahay qofku markuu toosnaado oo si toosa isu istaajisana wuxuu leeyahay allahuma rabbana walaka alxamd xamdan kathiiran طayiban mubaarakan fiihi kamaa yuxibu rabbuna wayarda dikrigaas yaa ugu fiican in la aqriyo allah rasuulku wuxuu yihi sal lla ly slam nin saxaabi ah ayaa isagoo tukan rasuulku oo tukan ku daba aqriyay marka wuu maqlay wuxuu yidhi markuu salaada ka baxay yuu ahaa qofkii lahaa xamdan kathiiran طayiban mubaarakan fiih mubaarakan calayhi kamaa yuxibu rabbuna wayarda yuu ahaa marka nin baa yidhi anigu ahaa yaa rasuula allahi wanaag un baana ula jeeday wuxuu yidhi 12 malag oo u kala baratamaya ama u kala ordaya kii qori lahaa oo kelimadaa kor u qaadi lahaa baan u jeeday buuri marka waa dikri aad iyo aad u wanaagsan inuu qofku barto oo halkaas ku aqriyo iyadana insha allahu tacaala ictidaalka markuu ruuxu sameeyo waa inuu sidii u laabto waxaan la diidan yahay oon la ogolayn inuu qofku intuu waan rukuuci
والركوع يكسي الصعود والسجود هذا أما الركوع وحي أنتو سايد هذا يسوون سجنانين اطمئنان يحسلوني باللي هذا أول لابتو لما أقول وين الستوس أول لابتو تهجني دي هركنه حتى يرجع كل عظم مكانه أما كل فقار مكانه رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إلى حب ولبا وكن نقض ماشيسي لفها ربركه وإني ماشوا دي كل عبتان وحب ولبا ماشيسي وكل عبت halkaas ay mas'alo waxa ku jirta ay culimadu waxoga isku khilaafeen oo Sheekh Al-Albani oo waxoga ee culimada ahlul Hijaz Sheekh Ibn Baz iyo Ibn Uthaymin iyo waxoga farta waaga ku yar goday oo uu leeyahay walaalaha iyagaas Hijaz ahlul Hijaz ay mas'aladas way ku khaldameen yani waxoga ku yar leexinayo mas'aladaasna waxa way gacmaha ma waxa lagu celinayaa markii hore qirada la aqrinay meeshii ahayeen halkana marka la rukuucay inta rukuucda laga laabto i'tidaalka lagu jiro gacmaha ma meeshii baa lagu celin bise wala sii deynaya waa mas'ala fil wajhina culimaduna way isku khilaafeen qola waxay dhan waa lagu celin qolana waxay dhan lagu celin maayo sideedabana khilaafka culimada hadii mas'ala aan marka daliil saxa qola haysataan qolada kalena waxba ayna haysanin waxba la isku mashquuliyo marka mas'aladan laakiin wallahu a'lam waxaad moodaa Sheekh Al-Albani rahimahullah inay sidiisu uu soo cabirayo saxiix tahay waxa jira gacmaha ma aha lafaha laga hadlayo waxa weeyaan al-idam al-faqar wa lafaha dhabarka waxa laga hadlayaa gacmaha ma aha ayuu ku sii taqriirinaya qofku markuu i'tidaalka sameeyo wuxuu u soo gudbayaa sujuudi markii uu soo gudbo wuxuu u dhacayaa على يدي سؤال هو الرئيس هو حوي مركز دعيسو ما لبض الجمعات بدلك أهر مرين مثل اللي بدي تجيب ومثلا نفترض لسكو خلافه ابن القيم رحمه الله أي تفسير مري الشيخ الألباني أرنتاس وكو خلافي وحين المثال خلاف كيدو كإيمان رسولك صلى الله عليه وسلم هأفرد سنين سيدا جيلو وفرستو مركز جيلو لبض اللغات هربوا دولك كله فتا مركو فريساناي إدين كل لغة دولك كله فنين مركز دتك قار وحيد هذين لبض اللغات ده عندك لبض اللغات وحامشوا دي نوجو لبض الجعمات قوليها كلنا وحيلين جعمال اللي هذا اللغة ما أكو هري سيدا استرتد وحصحيح عينين اللغة هين الجعمة أيهين مركز اللغة إنه لبض بانقبنا سيدا جيل أفر ما قبنا سيدا استرتد هدي اللي يجيله اللغة دول كله فتاي أضوها كله فنن أضوه إنه جعمها ودعناه سيدا صحيح عن قنيسة مركز جعمها أي الله هرمر صنايا إن شاء الله تعالى مسألة أنا سيدا صحيحة سيدا أي قنيسة قفك مركي ومركا أو سجوده أو أرجع السجودات أو جعمه الهرمر سطو لبض الجعمات فرحاس ويسود مايا مكلا جيجين يا وين يسود مايهين وأنا إنه قبله أجيريو حجابه دقيا wuxuu dhigayaa labada garab ayuu ku aadinaya meesha labada garab marka sujuudayso laan qofku inuu isu wada foorariyaa la rabaa marka saa isu foorariso labada garab meesha ku aadan yihiin gacmahaaguna dhinacyada ha ka yaalaan ama intay wax yar dhaafaan furuuc al-udunayn labada dhagood ha ku aadaan waa labadii meelood hore in ka hadlayna labaduba waa suuragal wala yarfa'u dhiraa'ihi 'an al-ard ويرفع ذراعيه عن الأرض مسألة داسنا قفكم مركو سيدا وصمين يسجود لبضان رضون كرب أقاري مركو رولك إنو كو أي اسكبقو لنادان معه رسولك وحولي صلى الله عليه وآله وسلم قفكين مركو تكنايو يوسن سمين سيدا أيغو أوكالي أيغا أيا وحوف الصدالوها سوكالي مركو الذراعين كايدينكو حفظ سنين قفكم مركو سجود سيا مركو تضبح حبنات وإنه صفي عن أمك كميو حلقة وضع تضبط حبنات بوإنه صفي عن وسجوده وتضبط حبنات وحين قنيان إنه رمان تضبط كسجوده وحين قنيان جبهة أو وجهه وحال الصعود سنك وأسكمت رسولكم مركو ترين صلى الله عليه وآله وسلم وجهه يسنك جعنت هالمرمو إشاري إيا لبضا كفين لبضا جعمات إيا لبضا جلب إيا لبضا اللغات الدنباء أطراف القدمين يعني وفرها لغات كنت أنت هاسم مركز سجودي وإن كل جود مدول بقولك عاد صارته تضبط حمنات بوين بقولك أي هيان طيب تضبط حمنات مركز بقولك صارته
labada jilib waa inay si fiican jabhadu waa inay si fiican dhulka ay u hayso waa wajigaaga labada jilibna waa inay hayaan atraaf alqadamayn labadaada gomadoodna oo lugahaaga waa inay hayaan waana inay taagan yihiin faraha luguhuna waxay u jeedaan dhanka qiblada ah labada cirbood qofku markuu tukanayo rasi wax la yiraahdo buu sameyn practice-aad ku arki doontaan insha Allah ta'ala rasi waxa way inuu sidaa labada lugood irbahooda ay soo hayaan labada lugood waa inay saa soo hayaan qofku inuu mar midba meel saa u dhigta ma oo salkiisina dhaxda ku aadan waa inuu sidaa ay u taagan yahay waxa soo arooray xadiis Sheikh Al-Albani mu'akharan uu ku saxiixiyay صحيح أبو داود إن لبدا فخيدود يلبدا جلب بودوينك يجلبها نفط وضع مركي للسجود إن لا يسسارة يأيجنا مسألة كلوي أنت مركو الروح صاء سجود أيا وحا أصوب بحيسا سجود وناكسن أو يتحمل عليها وروح سفي عن سجود يو قار كيسي دم وكر مرة يو قار كيسي هران السجود أو هوس هذا يو سلاس أيا لوه ليه سجودا وينو كحسل وقف سيد الركوع دي أنصار مرني حدنا وينو كحسل أذكار معان أيها حدنا أقرنا يا سبحان ربي الأعلى وبحمده ولا بكل الرواية سبحان ربي الأعلى ويسوغنتاي سبحان ربي الأعلى وبحمده هنا ويسوغنتاي يدنا أما وحال لي هاي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سيدان حقبا أنكسو مرني مركو الروح سجود سنيا هنا الدعاء وبدن وماشي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حوري قفكو مركز وقلوا يهي الله سبحانه وتعالى وحونا أولا كيهي إن لأجيب الدعاء ديسا الدعايست مركز والدعاء بتصدى مركو حلو باهي إن دعاء للدعايست وقفكو الدعاء ديسا أو بتصدى أيا لو باهي طيب وحاسو رجال قفكو إنه وجه قلوك سارو مركو سجوديو وحاسو رجال أوكلا إنه شيء كلا أرحيو isaga iyo dhulka inuu wax u dhaxeeyana waa suuragal marka dhulkii uu ina saartay ilaa sijaayadahan iyo maradii iyo sijaayadii iyo shay baad dhulka ka xigi kara wax mashaakilan xasiirtii iyo darintii wax mashaakilan arintaasi malaha iyadoo sujuuda markuu qofku uu sujuudayo al-iftirash wal-iqaa bayna sajdatayn ba soo arooray labada sujuudood dhaxdooda qaabkee loo fadhiisanayaa labada sujuudood dhaxdooda ilaan ragcaddii la arkay laba sujuudood bay leedahay sujuudda markaad u dhacdo oo soo kacdo iftirash wax la yiraahdo waa loo fadhiisan karaa in la goglado sinta ma aha in dhulka la dhigaa waa in lugtaada aad goglato oo iftirash practice ayaan insha Allah ta'ala ku muujin doonaa ama iqaa fadhi la yiraahdo oo labada lugood oo saa u taagan salkooda lagu fadhiisto halkaas waa aragteen inuu markaas oo kale ee lagu fadhiisto labaduba waa suuragal laakiin qalad atixiyaadka dhexe ma soo aroorin oo saxiix ma ah in sidaan oo kale qaabka iyagu u taagan qofku uu fadhiisto saxiix ma ah طيب markuu qofku sidaas uu fadhiisto wuu ku xasilayaa itmiinaan ayaa loo baahan yahay inuu sameeyo qofku markii uu sujuudsan yahay waa inuu sujuuda uu ku xasilo inuu ku xasilo oo uu si degan u sujuudo lugta bidix uu goglanayaa lugta midigna way taagnaanaysaa faruhuna waxay u jeedayaan dhanka qiblada ay u jeedayaan markuu fadhiga ku jiro waa fadhi lagu nasanaya naftiisa oo i'tidaal uu qofku fadhiga waa inuu ku sameeyo itmiinaan iyo deganaan uu ku sameeyo wuxuu aqrinayaa ducadan yaduna wuxuu leeyahay Allahumma ighfir li warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni أما وحورن كرا اللهم اغفر لي بكل علين كرا وسمين كرا طيب السجدة الثانية سجود اللبات وأنطاهرين صوص فيني أو كلا أيو يدنا وحو كسمي يبو كسمين يا مركو لبضا رقعضات وصدا أردميو حجدا هل رقعد مركو أردميو أو رقعد دي اللبات ربا وكعو جلسة الاستراحة وحلا إلى هذا بوسمين معناه هذا وإنه كن نصته مركز سيكعبا إسلام مركب إنه قف فرق هري كير هذا معها مركي السجوده وضربي السجود لما يسطو وإنه قف كجدال هذا أوفر سيد افتراش كي سيد سوء تحيات كي نها أو كلا كجرا إنه هذا الجدال إنتو ساوي حي كدب إنه صاقعه أي اللو بهاي أنت مركو سماه يروحه رجعت الله بعد أيو أوكعي
ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية ركعة مركز لما يسقط ربطنا ركعة دي لبعض أكعضه وإنه الروح يستاجو يسوي حوج كيس جمعها صاري وصا أكعية قابك أكعية أيه هذا علماء كهذلان ما جمعها رولك أيو كفت سنة يا وصا صاري مثل سيدا سوء الله بيا مثل هذا إن شاء الله براتك تايا كم وجندونا waxaa raajaxa inuu gacmaha u laabayo sida caajinka qofka markuu garaacayo oo kale burki iyo wixii dumarkii waad ku aragtay markii garaacin gacanta saas oo kale loo soo laabo waa sida badan marka sidaas ayuu istaagayaa oo u kacayaa insha Allah ta'ala wuxuuna ku sameeyaa ragcaddii hore wuxuu ku sameeyay iftitaaxun buuna soo celinaynin laakiin intii kale wuxuu ku sameeyay ayuu ku sameeyaa inta markuu qofku soo gaaro wuxuu soo gaaray atixiyaadkii dhexe ayuu soo gaaray ragcaddii labaad markuu ka baxo atixiyaadka dhexe ayuu la imaanayaa wuxuuna u fadhiisanayaa muftarish sida fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyay uu fadhinayo lugtiisa ayuu ku fadhiisanayaa laakiin halkan horay baan u ishaarnay iqcaagii fadhigii noocaan ahayo salka lagu fadhiisan jiray inuusan qofku u fadhiisanaynin ويضع كفه اليمنى على فخذه atixiyaadka marka gacanta midig wuxuu saarayaa jilibkiisa midig buu dul saarayaa نهاية مرفقه على فخذه مركب وحصارة يا جعنتي ساس لقطة بديح أي دوش هذا أصار رانيسا مدة بديحنا مدة جعنت بديحنا لقطة بديح أي أيضا دوش هذا أصار يا ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى كدب روح صمينا يا تحريك الأصبع إنه فرطة رقعتشيو مسألة سنة ومسألة كسرناتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحيابا بدن بانا لو شيغي رسولك وحوا كان يحركها يدعو بها ورقاجين جري ونكد عيسين جري مدى كلا الشيطان كان وي عيرسابا ليلو أدبئ وعيرسا وفرتاس وعرى مركو قفكو مركو قعنتا وضلابو وفرها لابو وحو فيدنا يا فرتاس صبابا اللي يداهدو كليا إيضا أيونو فيرنا يا قابكو أحريو fardhaxada iyo suulkana ama saas u dul saaraya ama xalqa ayuu sameeynaya labada kayfiyo ayaa soo aroortay iyadoo rasuulka sugnaatay sallallahu alayhi wa alihi wasallam in xalqa sida mareeg oo kale ama wareeg saa loo sameeyo iyo in la dul saaro marka tan laakiin mar walba way taagantaa iyada dhaqaajinta farta goormu bilaabi goormu sadejinaya culimadu khilaafaad bay geliyaan لكن سيدا صحيحة مسألة داس وحاوي صلاة التحيات كمرك الله باللابا لا باللابا دقاجنت التحيات كمركو رمادنا ولا لا رمي انت مرك دقاجنتو ايضنا واسكسو عنيسا قفكو مركي او التحيات كجران وحو فيرينا يا سيدان شيغني فرط ايو فيرينا يا صيغه التحيات ك صيغوين بدن oo kala duwan baa soo arooray تحيات ابن مسعود تحيات ابن عباس تحيات عائشة تحيات عمر تحيات مرك إلى لحمة الضبط ولا الصحيحة يشغل الألباني سوغوري هل حبوا أيينو كسو قال إنه تحيات ابن مسعود وحوها تحيات كوصحي صنع تقريبا بخاري مسلم صوت تجيموي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات كاسوحون نقنيا متك صحيح سنوي إن كستو يسجى نفتيس وحوا خلافة علماء أي جليان ابن مسعود رحمه الله وحوليه هي رسولكم مركو نورانا سداسا دي جرني مركو جيريودين وحن أبدلي التحيات لله الصلوات والطيبات السلام على النبي على النبي عائشة نفتيض ويكرر عضي مركو علماء وحيدين لبدا مسألة وصحيح وي مركو أتحيات كقف كل مادو وأتحيات كصورة قول ذاك لو حيوي جوابيا رسولك صلى الله عليه وسلم مركو جوجي والنولابة أصحاب بدن بميلك لو كل الدوام كن نولا أو الضم بدن بأصحابه تجي جرين ميل بدن بيجرين سفر لجيل جرين دجال بيجاد بآدي جرين
rasuulku kuma oran jirin markaad iga maqantiin assalaamu cala nabiy dhah marka sidaas assalaamu calaykum in ahaato marka sidaas aanad moodaa jumhuurul culamaa inay u badan tahay iyo sida saxiixan insha Allah ta'ala dadku sida la iska yiraahdo at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت مركودا قفك رسولك أيوك صلي رسولك كيفيات بلن بعصو أروري أو صحيح الشيخ الألباني كتاب كيسو قرية اللي عم تطبقه marka halka mida baynu soo qaadaynaa in la yiraahdo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid inu soo kaas waa siiqa al-Ibrahimiyya la yiraahdo waana siiqad saxiixa insha Allah ta'ala ugu wanaagsan inuu qofku la yimaado kadibna inta markuu aqriyo wixii ducaa isaga ayaa qofku insha Allah ta'ala aajabu soo rasuulku sheey ducada mid ajib galisiya waxyaabo uu rabo ha ku ducaysto ragcadii saddexaad iyo ragcadii afraad buu kacaya iyagana wuxuu ku sameeyay labadii ragcadood oo hore buu ku sameeynaya walaakin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan laakinahu qabla an yanhada yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra يعني markuu labadan ragcadood uu sameeyo intuu tasaddexaad u kicin hadana waxa weey qofku markaas midda saddexaad markuu ka kacayaan ujeeda midda afraad u sii kacaya iyadana wuxuu ku nasanayaa fadhiga isaga ahay horay aan u tilmaamaynay qunuud ayaa soo arooray in la qunuudo oo la duceysto qofku soo salaada ku jira marka qunuudka qunuud leeyahay qunuudtu naazila iyo qunuud witri baa soo kala arooray qunuudka naaziladu waxa weeye hadii dhibaato ay dhacdo oo muslimiinta mashaakil ay dhacaan colaadii iyo abaartii iyo dilkii dadka la leynayay iyo waxyaabahaas oo kale markay jiraan rasuulku sallallahu alayhi wasallam dad hadii loo duceynayo ama kuwa kale la habaarayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa qunuuday waxaana lagu duceynayaa xilligaas wixii umuurta iyada ee laga hadlay ay tahay ayaa lagu duceynayo oo munaasab oo arintaas iyada qunuud kalena waa qunuutul witr marka imaamku markaas waa duceynaya dadka kalena aamiin bay dhahayaan gacmahana kor baa loo qaadaya qunuudka la yiraahdo witriga Soomaha witriga ama dadku hawada tukadaan oo dad badan hal ahaado sidaas taraawiixda iyo salaatul leelka aan ku aragnay tahajjudki ama qofku kaligiiba ha tukado isagana qunuudkaas waxa la jideeyay in la qunuudo waa wax la jideeyay waxana qofku aqrinaya markaas oo soo arooray Allahumma hdini fi man hadayt وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولا لا من جاء منك إلا إليك دعاء رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء ذي أوبري صبت إجيسي أما حسن بن علي أيوب بريء ويلك رسولك وأوجه وها صلى الله عليه وآله وسلم التحيات كي قدام بيجي أيال سو جاري يقاب كي لو فريسن جري التحيات كي قدام بيجي وحو كيهر وجد وياه قاب فردقة كيهر افتراش بالإرادة يو سنتا رولك وحال وي افتراش لقطة لجوجلنا يي كان سنتا أيار رولك لردقنا يا سجنا براتك أيات كوارك دونتا إن شاء الله تعالى هو سنتا رولك ayaa qofku xal raba inuu sinta dhulka dhigo labadiisa lugood dabana dhinacaas ayay ka wada baxayaan iyadoo lugta midig ay taagan tahay ayay tii kalena maxaan ku dhinaca kale ay ka soo baxaysaa waxa kale uga duwan yahay kii hore markuu ka hore atixiyaadka ku jira gacantaan bidix jilibka dushiisa iska saaray laakiin atixiyaadka dambe jilibka waa la qabanaya gacantu sidaas ay afka ula gali oo way qabanaysaa isagana baraatig ayaan insha Allah ta'ala ayaan ku tusin doonaa marka intaas ayay uga duwan tahay kadib qofku wuxuu la sii gudbayaa inuu markuu rasuulkiina ku saliyo sallallahu alayhi wasallam siiqadii ibraahimiyada hadda aan soo aqrinaynay afar arimoodna inuu ilaahay ka magan galo subhanahu wa ta'ala afarta arimood sheekh al-albani rahimahullah wujubu arba'in buri afar arimood in laga magan gala waa waajib uu ka dhigay marka waa wax aad iyo aad muhiim u ah rasuulku wuxuu oran jiray sallallahu alayhi wasallam allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أفرتا الريموت إن الله لقى من قالوا كدب نقفكو
وإنه دعيسته دعوين تربضا أيها هلكا كسو أروري دعادي أبو بكر رسولك أوبري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رسولك صلى الله عليه وسلم دعاء لهي آخر ما يقول في الصلاة صلاة قدام بيه جري دعوينك وحيهيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت يضا وحيد دعادي قدام باسمك الدعوين تربضا وصاء قريو أنتو سنوليك بحينو حلقا أو كجرو هذا الدعاء داسا يكسو أفجري جري صلى الله عليه وآله وسلم انت قفكم مركو سمعيو waxaa la soo gaaray salaada in laga baxo salaada markii laga baxo tasliima ayaa looga baxaa salaada dhanka midig ayuu qofku u jeedsanayaa ilaa laga arko bayaanu khadihi al-ayman wa in dhabankiisa midig cadiinkiisa loo jeedo oo sidaas oo kale assalaamu alaykum sidaas oo kale uu qofku u jeedsado dhankan kalena sidaas oo kale waa inuu ruux u jeedsado oo dhinaciisa la arko iyadana baraatigta ayaan insha Allah ta'ala ku muujin doonaa hadii alla idmo markuu sidaa qofku u jeedsado qaabka kayfiyada marka salaadii looga baxayana afar kayfiya soo aroortay ama afar siiqa aan dhahe in la yiraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhanka midig dhinaca bidixna assalaamu alaykum wa rahmatullah marka wa barakaatuhdi ayaa laga reebay ama inuu labadaba la isla ekaysiyo la yiraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله لبدا قيبوضبا إن لسلي كيسينا ويسوء أرورتي وحكلا سوء أروري إنه قفك السلام عليكم ورحمة الله لكن ملك لنها بلحنا السلام عليكم وكليع لو استاغ بدأ أفراد وحين نقول إن تسليمة واحدة ليلادو وحق هرون لو سيجودو وحيرنا لنك ملك لو جنجيرسو أو أسو قفك يلادو السلام عليكم وحيرنا لنا عن ورحمة الله يعني لنا وحير وسيد عوج جنجير صدو إيادنا ويسوء أرورتي ولا ليال انتاس ووحي إيسهلنا دي إن شاء الله تعالى سيكوبا أن أصو أروريو صلاتي وحان الله كرجيني سبحانه وتعالى قفكو اسكو دايا إنو سيدان أتوكدو ذهني جيسي قلبي جيسنا واسكو دايا إنو جوغو سيدا أن صو سمينينا سمايا إنو تكدو صلاة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صلاة سنة أي نقطة مد خشوع غاية أو آدي آدوين أي لأن نقطة إن شاء الله تعالى قف ولبا وكد دالو وختاما إن شاء الله تعالى جبدي أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصائر أعمالنا وعن إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنيا إنه عمل كينا صلاة دينا يا صوم كينا يا عماشينا دن ونجا أقبله خالصا لوجه الله إلهي سبحانه وتعالى أنا خالص وكدقو رياء يا سمع يا استطسس اسم قشين إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديو إلهينا سبحانه وتعالى وميزان الحسنات إنه قليو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحان إلهي سبحانه وتعالى وبريا إنه دنبيا شيخ علمدي صلاة محان كورادا سيدان نوسو تلخيصيي إنه دنبيا ودافو قف كستو سي فديا أما كقيب قاتا إنه ددك مسلمين تا صلاة صحيحة وجد بيا إسقنا إلهي سبحانه وتعالى ميزان الحسنات إنه أقليو إنتاس أيام كسو جبينا يا وحي أن خلدي وحي كأهاد النفط إذا إيه الشيطان وحي أن صحينا وحي كأهاد الله سبحانه وتعالى وحاد إن شاء الله تعالى كسو دوان دونتان براتك دي صلاة إني نصمين إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا ليال وحان سمينينا وحير وبرات كذا صلاة إن شاء الله تعالى مسألة سو إن براتك صلاة لو سمينا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم باسميي يسوع منبركي كوري دد كانت تسيناي صلاة marka in tacliim ahaan dadka la baro oo la tusiyo baraatig loo tusiyaa waa mas'ala rasuulkii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aan uga dayanayno marka insha Allah ta'ala maadaama markaan fadhinay waxoogaa aan faahfaahinay waxaan sameeynaynaa hadda wax khalad iyo wax midda saxda inaan sheegno qofka musalliga ee tukanaya
wuxuu marka koobaadba qiblada inuu qaabilo ayaa lagama maarmaan oo qiblada u jeedsado waa lagama maarmaan markii uu qofkaasi qiblada uu u jeedsado arrinta labaad wuxuu samaysan doonaa sutra ayuu samaysanayaa sutradan insha allahu tacaala waan tusinaynaa waa waajib sutrada in la samaysto sunno ma aha sida raajixa waajib weeyaan marka qofku inuu meel bannaan iskaga tukado ma aha maadaama rasuulku yidhi ha u tukanin ilaa sutra inay ku hortaalla ma ogiya ha tukanin ayuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam kadib qofku salaadii ayuu gelayaa iyadoo salaada gelideedana uu rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu ku tilmaamay inay allahu akbar ay ka bilaabato assalaamu calaykumna looga baxo marka wixii ka horreeyo usalli farad hebel in la yidhaahdo iyaduna waa arrin aan sugnayn oon daliil aan lahayn oo bidco noqonaya marka salaada allahu akbar ayaa laga bilaabaa qofku marka allahu akbar leeyahay gacmaha uu rabo inuu qaado waxaa lagama maarmaana inuu qofku fahmo meesha gacmaha la gaadhsiinayo iyo xilliga allahu akbarta la samaynayo iyo meesha la dhigayo intaasiba muhim ayay noqonaysaa gacmaha qaadidooda iyo allahu akbarta saddex wej ayaa ku soo arooray in loo sameeyo inuu qofku gacmaha iyo allahu akbarta hal mar wada qaado sidaa isagoo ah oo qibladii maalan usii jeeda ayaa ruuxu wuxuu leeyahay hal mar buu allahu akbarta iyo gacmihii isla qaadaya allahu akbar inuu yidhaahdo ruuxii waxaa kaloo soo aroortay allahu akbarta in la hormariyo oo gacmuhu ka dambeeyaan waa sidee maalan allahu akbar kadibna sidaasoo kale uu u qaado waxaa kaloo soo aroortay inuu gacmuhu horeeyaan oo allahu akbartu ay dambayso iyaduna waa sidan allahu akbar saddexdaa kayfiyo ayaa sax ah in qofku uu samayn karaa meesha la gaadhsiinaya gacmaha laba wajba iyadana ku soo arooray labada garab in la gaadhsiiyo iyo in waxoogaa kor loo qaado dhagaha furuucdoodan hoose la gaadhsiiyo iyadoo oon la taabanaynin dhagaha in la taabtaayo iyadu waa min dawaaci lwaswasa laleeyahay shaydaanka ayaaba ka faa'iidaysto qofku inuu sidaa u taabto waxba shardi maa ee waxaa la rabaa oo keliyataa inuu qofku labadan meelood ama halkaasuu gaadhsiinayaa oo gacmaha labadaa garab ayaa lagu aadiyaa ama waxaa la samaynayaa inuu koray hore u yar qaado halkaa dhagaha qaybtooda hoose uu gaadhsiiyo labadaasna waa labada meelood ee gacmaha la gaadhsiinayo weeyaan ayib dadka qaar baa marka waxay sameeyaan inay gacmaha sidaan oo kale iska dhahaan allahu akbar sidaasoo kale ay maartay gacmihii iska dhahaan qaar kale waxaa suuragala inay sidaasoo kale u qaadaan qaar kale waxaa suuragala inay labadaa dhagood ay geliyaan gacmaha qaybtooda hore qaar kale waxaa suuragala inaynanba ay waxbaba hadlin ay iska aamusaan oo gacmaha halkan iska saartaan intaasoo dhan waxay noqonaysaa qaladaadka jira ayib markuu qofku gacmihii qaado ama halkaan ha ku aadiyo ama waxoogaa kor ha u qaado xagee buu dhigayaa meeshuu dhigayaayo waa xabadka ruuxa halkiisa laabta ah ayuu gacmaha saarayaa meel kale lama saarayo keliyahana la qabsan maayo dhinacna laysu qaban maayo mana la sii daynaayo kullu waxa ku soo aroor dhuuntana la gelin maayo intaasoo dhani waxay noqonayaan axaadiista waxa ku soo aroor dhan wada daciif waxaa saxa in la saaro laabta ruuxu inuu saaro ayib qaabka uu u saarayo iyadana laba kayfiyaa soo aroortay inuu gacanta midig gacanta bidix uu saa u dul saaro waana siduu rasuulku yidhi ambiyada haddaan nahay macaashira alambiyaa warusul waxaana la amray inaanu gacanta midig gacanta bidix dul saaro marka inuu qofku saa u saaro iyadoo saariddaa qayb la yidhaahdo faraha qaybtooda hore iyo rusqiga oo halkan kala baxa iyo wax yaroo saacid kale dhudhunka ah saddexdaa qayboodba isagoo qayb ka saaraya inuu ruuxu saa u saaro waa kayfiyad sax ah waxaa kaloo saxa inuu qofku qabto oo sidaa uu u qabto iyaduna waa kayfiyad sax ah waxaan iyadu sax ahayn in la isku daro qabasho iyo saarid dadka qaar baa waxay dhahan waxaan samaynaynaa farta suulka iyo faryarada ayaanu ku qabanaynaa saddexda dhaxana waan dul dhigaynaa kayfiyadaasi marka khalad ayay noqonaysaa marka waxaa saxa iyo imaa in la qabto oo ruuxu sidaa u qabto iyo imaa inuu saaro labadaa kayfiyadna waa qaabka loo saarayo meesha la dhigayana waad baratay waa laabta oo keliya meesha la gaadhsiinayana waad baratay ama waa labada garab ama waxa weeyaan labada dhagood qaybtooda hoose intaas ayaan uga degaynaa insha allahu tacaala qaybta qofku markii uu marka mana saaraya baa nidhi laa keliyana qabsan maayo meel kalena aadin maayo halkan oo keliya ayaa la rabaa inuu qabto
rukuucda markuu ruuxu soo gaadho iyadana qaabka loo rukuucayo waxay noqonaysaa inuu qofku horta gacmihii sidii cala alwujuuhi almutaqadima saddexdii kayfiye ee noo hormaray oo ahaa allahu akbartu inay horayso ama allahu akbartu iyo hal mar isla qaado ama inay dambayso saddexdii mid ka mida ayuu qofku yuu samaynayaa ayib marka faatixadii buu aqriyey suurad buu aqriyey kadib muxuu samaynayaa kor buu allahu akbar kadib ayuu ruuxii rukuucaya waxaa la rabaa qofka dhabarkiisu inuu sinaado iyadoo la rabo qoortiisa hore iyo miskihiisu inay siman yihiin lama ogola inuu qofku sidaa u yara taagnaado oo sidaa maalan qofku qaarka hore kor u taaga lama ogola waxaa kaloo la ogola inuu qofku madaxa hoos gashado uu hoostaa u foorriyana lama ogola waxaa la rabaa sidaa inuu qofku uu u siman yahay ilaa haddii xitaa biyo lagu dul shubo ama weel la dul saaro weelkaasi uuna dhacaynin baa loogu talagalay markuu qofku sidaas yahay marka lama ogola inaad gacmaha xaggeed dhigaysaa iyaga naftoodii rukuucda waxaad saaraysaa labadaa jilib ayaad gacmihii saaranaysaa adigoo sidaa u qabanaya oo gacmihii waxoogaa faraha kala qaadaya farihii inaad saa isugu ururiso lama ogola inaad saa u kala geysana ma aha waxoogaa iyagoo iswada garab jooga inaad sidaa u qabataa la rabaa sidii qof qabanaya oo kale labadii jilib inaad noqoto saas ugu cuskato oo qofku uu hayo ayaa laga mamnuuc dadka qaar baa meelahan dhudhumada iska qabsada qaar kale waxaa laga yaabaa inay meelahan oo kale iska qabsadaan marka meehe halkaas oo kale ayaa la saarayaa qofku markii uu ka tooso ictidaal baa la yidhaahdaa wuxuu geynayaa gacmaha meeshii hore ayuu geynayaa ama labadii garab ha geeyo ama labada dhagood salkooda ha gaadhsiiyo marka qofku intuu iska tooso gacmihiisiina siday iska yihiin lama ogola waa inaad gacmihii kor u qaaddo ood celiso ood meeshoodii haddana geyso marka xilliga ictidaalka la yidhaahdo oo qofku uu taagan yahay waxaa la rabaa xubin walba inuu booskiisii hore ku laabto uu qofku si toosa u istaago waxaa la diidan yahay inuu qofkii rukuucsanaa oo saas oo kale ahaa oo haddana korta oo haddana kadib isla markiiba uu soo laabto taasina waa qalad waxa weeye inuu qofku laabto ilaa xubin walba meeshiisii hore oo kale uu ku sugnaado halkiisii uu taagnaadayo waa lagama maarmaan kadib markuu qofkaasi ictidaalkii saa u istaago adkaartiisii akhriyo ayuu soo rukuucayaa haddana waxaan jeedaa wuu soo sujuudayaa sujuuddii buu marka u imaanayaa waxaa weeye qaabkee marka loo dhigayaa sujuudda ma labada jilib ayaan dhulka marka horeba saarayaa mise labada gacmood ayaa la saarayaa waa masale khilaaf culimmadu ay geliyaan la sida raajixa waxa weeye labada gacmood ayaa lagu bilaabayaa qofku isagoo sidaa u taagan oo ictidaalkii soo dhameeyey ayuu soo sujuudayaa allahu marka gacmihii baa hormar gacmaha ayaa waxay ka horeynayaan labada jilib gacmihii marka meeshuu dhigaayo naftooda la rabaa in la xuso halkaan oo kale inaad dhigto ood labada jilib iska garab dhigato ma aha dadka qaar baa saas oo kale intay isaga dhigtaan ayaa halkaa gacmuhu u yaalaan markay sujuudayaan dadka qaar baa intay halkaa yidhaahaan bay saas oo kale u dhigayaan waxaasoo dhan marka dadka qaar baa sidan iska ah marka waxaa la rabaa labada gacmood ama labadii garab ee markii hore la taagnaa ay ku aadanaayeen inay ku aadanaayeen saas oo kale ama waxaa la rabaa inay waxoogaa yar ka horeeyaan oo dhagaha ay maaragtay meeshoodii ku aadanaadaan marka sidaasaa waxaa kusoo baxaysa rukuuc qofku waa inuu marka isfoorariyo oo ay soo baxdo si saxa inuu qofku markaa xilligaa uu u sujuudsan yahay marka uu qofku sujuuddaa labada midda hore dhammaysto wuu laabanayaa wuxuu u laabanayaa sidaas oo kale sidii atixiyaadkii dhaxa oo kale isagoo u fadhinaya ayuu laabanayaa oo lugtiisa bidix ee ku fariisanaya midda midigna ay u taagan tahay jalsatul istiraaxa ayaa la yidhaha markuu sidaa ugu laabto ayuu haddana soo laabanayaa tii kalena sidaa markuu sujuudo xilliguu kacayo ruuxu haddana fadhigii aan hadda tilmaannay buu ku noqonayaa oo saas oo kale ayuu u laabanaya labada sujuudood dhexdooda waxaa bannaan inuu qofku ku fadhiisto labadiisa lugood oo kale matalan labadaas lugood inuu sidaa labada sujuudood dhexdooda waa suuragal inuu ruuxu ugu fadhiisto waa suuragal matalan labada sujuudood oo kale inuu sidaa u fadhiisto waa suuragaloo iyagii uu ku fadhiisto waxaa kaloo suuragala inaad sidaa u goglato iyaduna waa suuragal laakiin waxaan la ogolayn xilligaas yacni labadaas ubaa soo aroortay middaan marka hadda aan qaabka u fadhiyo dad baa atixiyaadka dhexe sidaa u fadhiista marka taasi waa khalad atixiyaadka dhexe sidaa looma fadhiisto sidaan unbaa soo aroortay in loo fadhiisto waa midka dhexe midka dambe markaan gaadhnana
isaga dhinaca dhulka la dhiganayaa oo sidaas ayuu ruux u fadhiisan labadiisa lugoodna xagga ayay ka wada baxayaan ayib markii qofku sujuudi uu soo dhamaysto wuu soo laabanayaa kadibna ragcaddii kale ayuu iyadana sidaa u tukanayaa ragcaddii afraadna qaabkaas oo kale iyaduna ay ku imanaysaa waxyaabaha muhiimka oo baraarujinta u baahan waxa weeye salaadu waxay u baahan tahay khushuuc in la khushuuco taasna rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam qofku ha fiiriyo meesha uu ku sujuudayo ha fiiriyo markaad tukanayso saa u taagan tahay ma aha inaad midigta saa u fiiriso ma aha inaad bidix fiiriso ma aha inaad kor fiiriso ma aha inaad hoos fiiriso qofku wuxuu fiirinaya meeshuu ku sujuudi lahaa ha fiiriyo hal mar baa laga soo reebaa oo waxa weeye atixiyaadka marka lagu jiro atixiyaadka markuu qofku sidaa u fadhiyo atixiyaadka dhexe lugta saasaa loo gogladaa sidaas markuu ruux u fadhiyo wuxuu fiirinayaa fartiisa ayuu fiirinayaa rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam way ka sugnaatay farta in sidaa loo dhaqaajiyo wuxuuna yidhi rasuulku sal alla alay slam shaydaanka ayaa lagu cayriya oo shaydaanka aad bay ugu daran tahay weliba shadiid ayay culimmadu qaar u dhaqaajin jireen marka fartaasuu fiirinaya markuu ruuxu atixiyaadka uu ku jiro ama inta kale oo dhan wuxuu fiirini meesha uu ku sujuudi lahaa labada atixiyaad waxay ku kala duwan yihiin qaabka fadhiga loo fadhiisto ka hore sidaana loo fadhiistaa hadda aan u fadhino oo waxa weeye qofku inuu lugtiisa goglado ka dambe laakiin sinta ayaa dhulka la dhigtaa oo saasaa loo fadhiisanayaa qofku isaga dhan inuu fadhiisto ayib waxaa kaloo ku kala duwan yihiin qaabka loo qabanayo atixiyaadka hore sidaan gacantani saasay u saaran tahay lugta bidix tan midig mar walba iyadoo waa sidaan rasuulka waxaa ka soo laba kayfa in sidaas xalqa ahaan loo laabo oo farta dhaxada iyo suulka sidaa la isu saaro oo xalqada daloolka ay saa u ahaadaan waxaa kaloo sugan in sidaa loo laabo iyaga dhan intii lasoo laabo gacmaha suulkana sidaa loo dul saaro mid walbana qaabkaanay u fidnaanaysaa gacantana waad dhaqaajin kartaa wax dhibaato ahaa male farta inaad dhaqaajiso ama gacanta bidix atixiyaadka hore sidaanay u dul saaraanaysaa sidaa ayay isaga saaraan halkaasayna oolaysaa laakiin atixiyaadka dambe wuxuu uga duwan yahay iyadu qaabka ayay noqonaysaa oo qofku wuu qabanayaa sidii kaanahu qaabid isagoo hayo oo kale ayay noqonaysaa oo saas uu qabanayaa marka kadib salaamtii markuu ruuxu soo gaadho oo atixiyaadkii uu dhammeeyo atixiyaadkii u dambeeyey qaabkan oo kale midda kale oo muhiimka waxa weeye salaad kasta oo 2 ragcadood ah ama subax ha noqoto ama sunna ha noqoto salaada 2 ragcadood ah waxaa loo fadhiistaa qaabkana loo fadhiistaayo atixiyaadka dhaxasaad u fadhiisanaysa baa loo fadhiistaa laakiin salaad kasta oo iyadoo 2 ragcadood ka badan iyada qaabkan ayaa loo fadhiistaa oo sinta ayaa dhulka la dhigtaa kadib qofku markuu soo gaadho assalaamu calaykum waraxmatullah afar kayfiyo ayaa sugan iyadana oo rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu yidhaahdo dhanka midig assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhanka bidixna assalaamu calaykum waraxmatullah inuu yidhaahdo waa arrin sugan wey waxaa kale oo sugan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah oo isku mid ah iyo waxaa sugan assalaamu calaykum waraxmatullah dhanka bidixna assalaamu calaykum oo keliya waxaa kaloo ka sugan rasuulka hal mar keliya in lagu koobto adiga oo dhan xagga hore oon fiirin wax yarna dhanka midig ee u yarjeesanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saas oo kale ama assalaamu calaykum oo kale intaad dhahdo wax yar dhinacaasun isu gedido marka afartaa kayfina waa sida rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam salaada rasuulka uga sugnaatay